bilaabay waxa aynu ognahay in magaalada Jigjiga ee ismaamulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay xiisada ka taagnaayeen tan iyo maalintii Sabtidii halkaas oo qalalaasihii ka dhacayna uu ku fiday magaalooyin ay kamid yihiin Diridhaba dhimasho iyo khasaare badan oo maaliyadeedna oo halkaas ka dhacay ugu dambeyntiina ay noqotay in madaxweynihii dawlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar uu xilkiisa ka wareejiyo wararkuna sheegayaan in haatan isagii loo qaaday xagga iyo Addis Ababa haddaba xaaladii ugu dambeysay ee magaaladu sida ay haatan tahay waxa ay ku hayay wararkaasi Xasan Cali Geele soo saaraha barnaamijka Saaka oo haatan studio la fadhiya Xasan أحمد حالة مقالة جيجيجا دولة ديانك الصومالية إثيوبيا وعي دقن تهي مقالة إلى ساكتة روب أيا كدا أي لكن ما هو بنا روب كاسي أنت وجارسي سنة هاي إن واحد مدة إن الله شو أي ست ترتيبها أصل لعبنا يسوع ما أنت وحالة فليا إن بنجيدو أي فرمان إن واحد نقطة هي إن ربشبيه دعاية مانتي سبتة هاي إن وحال لجو بوبي بارنكي كويا لمقالة ذا سي وحنا عارفين تاسي أي دبعت تكون نقطة جناح ستة المقالة ذا أحمد إن كستو حالته أي دقنت هاي هذانا dadka dhigta ayaa u taagan waxa jira in dadka ka soo jeeda qowmiyadaha qaar ee aan Soomaalida ahayn laga dareemayo inay magaalada ka baxayaan wararkan waxay sheegayaan in ciidamada booliska federaalka Itoobiya ay isku dayayaan inay celiyaan dadkaasi oo u muuqda inay magaalada iyagu isaga qaxayaan dhanka kale Axmed magaalada dhagax buur waxa la soo sheegayaa in ciidamada liiyo boolisku ay gadoodeen oo iyagu iyo ciidamada federaalka ay soo fadhiyaan ciidamada liiyo boolisku waxa ay markii hore joogeen deegaan lagu magacaabo Obole oo ku yaal duleedka magaalada dhagax buur waxaana jira dadaalo xiisada lagu dejinayo ay wadaan odayaal balse ilaa iyo haatan lama soo sheegin wax hal rasmi ah oo arintaasi laga gaaray liiyo boolisku waxay gadoodsanayeen tan iyo markii ciidamada federaalka ay Jigjiga ka kaxaysteen madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo sida wararka aan ku helayno haatan xabsi guri ku ah magaalada Addis Ababa waxaa jira warar sheegaya in shalay diblomaasiyiin ajaanib ah ay xiriir la sameeyeen hogaamiyaasha dowladda federaalka Itoobiya oo ay kala hadleen xaaladda uu ku sugan yahay gobolka Soomaalida ee degto ee Itoobiya aad iyo aad buu maatay Xasan Cali Geele oo inoo soo koobay xaaladii u dambeysay ee Jigjiga iyo guud ahaanba deegaanka dowlad goboleedka Soomaalida Itoobiya sida ay haatan tahay arrimuhu wixii